الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إلهي ومهد سكرة تبارك وتعالى بعد الله وحنا أمهد علنا سراكيش عيد مضى مع مرضي حل معنا الأمان ديار كواه هورجلك أما شقده كلنك قميصيجا أما فكري قلوا عن الولاد رقم هايو دول تقولت شعبك دول تقولت كجبلان يدمان نظامك يكون شيئين شعبك دول تقولت كجبلان يمسؤولين تدا أنت سكدب waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo ahmiyada shirkiga jaraa'id ugu ballaaran uu yahay mas'uuliyiintii ama musharaxiintii Soomaaliyeed ee xalay ka hadashay magaalada Muqdisho dareenkii ay muujiyeen waa ugu mahad celinayaa xaqiiqiyan niman Soomaaliyeed oo mas'uuliin ah oo u dhibo dalkooda waxa dhibo mas'uuliyadna dareemayo fahmahayana danaynayana Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo wanaag iyo waxaan walaalow ahayn Soomaaliya inaysan isku socon karin la ilaaliyana dastuurkii qaranka Soomaaliyeed uu ku heshiiyay ummadda Soomaaliyeed ee heshiiska ku ahayd waa ugu mahad celinayaa dareenkoodii gaar ahaan ay qadiyadii ka hadleen Jubbaland gumaysiga gaar ahaan ka jira gobolka Gada iyo xumaanta iyo ciidamada jabhadda ah oo qariban oo shacabka iyo nidaamka dawliga ee Jubbaland intaba in lagu qaribo loo soo dadgureynayo waxa yaab ah ayadoo magaalada Muqdisho waxa ugu dhow afgooye oo 30 kilomitir u jirto iyo balcad oo ina sidoo kale 30 kilomitir u jirto ayadoo la isku mari karin degmooyinka xamar cadow oo haysto magaalooyinka ay xirxiran yihiin shacabka uu ku ganacsan laayahay in maalin kasta diyaarada lagu soo dadgureeyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la yiraahdo la keenay deegaano ay xaqiiqiyan nabad ahaa intii aan mashruucaadka iyo xumaanta lagu abuurin muddada 10 bilood ahayd oo dhibaatadan ay ka shaqeynayso dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka iyo taliyaha sugidda waxaan inta badan shacabka Soomaaliyeed midiyaha loo mariyaa oo been ah oo waxba ka jirin laakiin dadku ay miir qabaan xaqiiqada ay og yihiin dad la qaldi kara aysan ahayn xuduud baan difaacaynaa Kenya dalka ku soo duushay dawladda ma waxa lagu diriraa ama lagu diriraa wiilal dhibow oo diyaarado lagu soo qaaday يا دولة ولا درة ما شعبك بنت لو شيء ما نفتو ذا بنت أو قنعنا يعني دتك مسؤولين تأه أو حسكو هذي وأهرن أدو فرحون وحقيقيا أن لكوبي كرين حمانتي أنت تنتهي مدك له حدوده مملكاري يبولها وأفر كيلومترها ما أفر كيلومتر بحدود ذلك الصومالي لا سداد بقول يكون كيلومتر ركب لارن أو بري أو بدك كجري مع حدود كينيا لا من تسأل لقد دفاع يا مركب مبلد حاو يا ملكاري وقف كستو يقان وفهماي بيبون وقف كستو يقان وفهماي صوماليا وأفر كيلومترها وحلقة دفاع يا دولة كينيا أرنت أسبان ومد الصوماليين أكتهاي متك شيء هي إلهنا ونكحشونين ومد الصوماليين نكحشونين ويان ملاحظي يا مسؤولين تي حقيقيا Soomaaliyeed oo arintaas xalay sida adag uga hadashay markasto oo shir diray qabtaan ama markasto arimaha Soomaaliya ay ka hadlayaan ka hadashana waa uga mahad celinayna waxa xaqiiqiyan qofkii wax Soomaali waxa tirada hadii aad wax lagu sheegi jiray wax waa ku sheegay xalay rag mas'uuliyiinta ah qaar kamid ah waxa malaynayaa mudan Cabdiraxmaan Cali Shakuur erayga uu ku hadlay hadii uu wax fahmay maxaa Cabdullaahi Farmaajo intaas waxay u tahay saaka jaamacad dhameystiran waxaan dhihi maanta أنا شخصياً المعذر بنا مع عبد الله فرماجو مدحوني دلك هاي 4 سنوات سواء هي دلك واد قربتي وحقيقياً هذا جبلان يبوتلان هي سنين أو 4.5 دتك جارك هاي واحد دتك أضح كل هيدا أو 4.5 سوالف كسوق قبستي يقول لماذا كل شتي قولي جارك هذا أضح لا لهيد هدي الله شنو يدي وأدب كل جسي وأديال خوضه أو قول كي جدو أو بلهان قويس كادي جفدا أتكلمتي أبن الصومالية مركز لقصة توا أدمانك الديارات عيدنا كسود تقوليني ست أسأل مدحوننا أنت مدحونا أحد ذلك أنت قررتي وقفلا ذلك الصوماليات ومد الصوماليات مسؤولين الصوماليات نوحربا ذلك بدبادو أباهي إلا بدبادي أباهن أنا كده أنا جبلان مسؤولين تدي شعب كده عندما وحديارنا ذلك نوحك بدبادين ما الله فيرسن كرو أنت وحكب بدن لبعد تدا يهجر دامية دا يدعى يبابك يحمانت يبنت شعب الصومالي الوضع ما نقول الغادن إنه وحلا كده بدم سعد هذا أنت هنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.